maanta waxaan farxad noo ah inaan dib u bilaabayno barnaamijka isxilqaan wejigii labaad wareeggii 15aad sidaa u jeediin maanta waxaan ku bilaabaynaa wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta oo maanta nasiib u yeelatay inay ka qayb gasho wareegga labaad wejiga labaad wareegga 15aad horta waxaan u hambaleynayaa wasaaradda boostada isgaarsiinta aad iyo aad agaasime runtii u jeedaa shaqaalaha aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo gobolka banaadir oo iyagana dad oo volunteer ah noo soo diray gobolka aad u mahadsan yahay barnaamijkan isxilqaan oo dalka dib loogu dhisaayo oo ah aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii ay aragteen in tiyaatarkii qaranka lagu dhisay in madxafkii lagu gabagabeyn rabo haddana aan taaganahay maktabaddii waxaan rabaa howlwadeennadii ka soo shaqaynaya muddada dheer ee marin ugu horeyso xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo Ismaaciil oo hadda wasaaradda shaqada iyo bulshada oo leh coordinationka barnaamijka iska leh oo nagala jooga agaasimaha guud waxaan rabaa dhammaantiin inaan idiin mahadceliyo dalkan annaga ayaa iska leh waxaan rabaa inaan shaqaale weynaha Soomaaliyeed aan si gaar ah shaqaalaha dawladda kaltanka wejiga labaad wareegga 15aad oo maanta la daahfuraa isxilqaan in dalkeena annaga aan dalkeena dhisanno oo annaga isku kalsoonaanno waxaan rabaa inaan shaqaalaha la hadlo in lala xisaabtami doono in loo baahan yahay in sida maanta wasaaradda boostada isgaarsiinta gobolka banaadir ay uga soo qayb galeen in shaqaalaha oo dawladda ay waajib ku tahay inay ka soo qayb galaan maalin walba hay'adda ku qoran in looga baahan yahay inay yimaadaan oo ay ka qayb galaan barnaamijkan iyagoo uniformkoodii wata dharkoodii iyagoo wata sida matqa wasaaradda ay boostada isgaarsiinta u diyaar u tahay inay imaadaan oo hawshan la dardargeliya loo baahan yahay insha Allah ta'ala marka waxaan rabaa shaqaalaha dawladda inay si fiican u dhageystaan fariintan aan u direyno fariintan waxa weeye ka qaybgalkooda barnaamijka isxilqaan waa waajib waxa looga xisaabtamayaa saacadaha ay ka shaqeynayaan hay'adahooda haddii aad canshuur bixiyaasha Soomaaliya dawladda lacag ka qaadatid maalinta hay'adaada lagu qoro inay ka qayb gasho barnaamij isxilqaan waa in aad imaataa oo adigoo uniformkaagii agaasimaha guud kula socdo sida maanta agaasimaha mataqaana guud wasaaradda boostada isgaarsiinta kula socdo qalabkiina idinkoo wataan idinkoo diyaar u ah shaqo idinkoo diyaar u ah shaqaa sharaf leh bayaan laga rabaa haddii ilaahay inaad dhammaantiin ka soo qayb gashaan aragtidan waa u jeedaan dalkii lagu soo qurxiyey tiyaatarkii lagu dhisay haddii ilaahay mana mar dhowna waxaan loo dhigi doonaa guriga hooyooyinka waxaa la samayn doonaa mataqaanaa insha Allah ta'ala waddanka dhan bilcdiisa lagu soo celin doonaa waa aragtida madaxweynaha waa wax muhiim noo ah dalkeena dhisana soo diyaar uma nihin shaqaalaha dawladda soo diyaar uma inaan xooggeena iyo awooddeena isugu geenno oo dalkeena dhisana soo diyaar uma nihin waxaan naga rabaa hay'ad walba oo mataqaanaa oo dawladda ka mid ah waqtiga jalwadka ku qoran yahay inay ka soo qayb gasho waa waajib waa qasab waa lala xisaabtamayaa waa la fiirinayaa hay'addii aan ka soo qayb gelin abaalmarina sidii la abaalmariyey tii hore ayaa loo abaalmarin doonaa maanta waxaa sharaf leh in wasaaradda boostada isgaarsiinta ay lambar 1 qaadatay sabab bay u qaadatay because mar walba kaalin walba kaalinta gaad bay ka soo gashaa in shaqaalada imaadaan waa u hambaleynayaa agaasimaha waxaan kaloo hambaleynayaa gobolka dadka barnaamijka isxilqaan ka hirgala wasaaradda shaqada waxaan amrayaa agaasimaha guuda in barnaamijka si joogta ah uga warqabtiin coordination idinka iska leh adigoo la shaqeynaya marin xafiiska wasaaraha waa in barnaamijka la dardargeliyaa oo la dhammaystiraa iyadoo dhammaystiran oo qurxoon mataqaanaa insha Allah maktabaddii lagu furaa mar dhow madxafka waa la dhameeyey tiyaatarka waa la dhameeyey guriga hooyooyinka waa la dhex dhigi doonaa haddii ilaahay insha Allah ta'ala shaqaa sharaf leh diyaar muuna inaan shaqaysano shaqaalaha dawladda diyaar Soomaaliya inay ka qabataan dhismaha dalkooda ayay shaqaan laga rabaa oo guuleysha insha Allah ta'ala